garoonka ugaas khaliif ee magaalada Beledweyne waxaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka cusub siyaasadda sidoo kale maaliyadda gobolka Hiiraan mudane Maxamed Cabdi Maxamed Arki sidoo kale xildhibaano ka tirsan dowladda Hirshabelle maanta ayaana si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka ugaas khaliif ee magaalada Beledweyne gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cali Sow mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Hirshabelle boqolaal shacab ayaa maanta si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka ugaas khaliif ee magaalada Beledweyne gudoomiye ku-xigeenka cusub siyaasadda sidoo kale maaliyadda gobolka Hiiraan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo sidoo kale maaliyadda gobolka Hiiraan ayaa kaga mahad celiyay shacabka gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo maanta soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyay garoonka ugaas khaliif ee magaalada Beledweyne qaar ka mid ah mas'uuliyiinta soo dhaweynta u sameeyay gudoomiyaha ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo isla markaana ka warbixiyay soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay wafdigayni ee ka yimid magaalada Muqdisho soona gaaray magaalada Beledweyne iyadoo ay qoraxdu aad u kulushahay soo dhaweyntaas waa ka mahad celinayna aanu malaynaa waxa magaalada soo gaaray maanta gudoomiye ku-xigeen cusub oo loo soo magacaabay siyaasadda iyo maaliyadda ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdi Maxamed Arka waxaanu soo dhaweyseen si qalbi same ah soo dhaweyno gudoomiye ku-xigeenka cusub ee gobolka Hiiraan ee siyaasadda iyo maaliyadda waxaan leenahay gudoomiye ku soo dhawow waxaan u soo magacaabay magaalada ku dhalatay waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wada shaqeyn iyo qurux badan iyo intii on gudoomiyihii hore meesha xilka sii baneenayo inuu intii qabtay inaad kasii wada doonto sii qaban doonto maanta waxaa farxad noo ah in aan soo dhaweyno gudoomiyaha cusub saaxiibkay ah inaan soo dhaweyno farxad weyn ay tahay gudoomiye hore insha Allah ilaahay idinkiis waqtigiisa dhamaaday waa asna waa sagootin doonaa hadii bulshada rayidka inay codsiyadooda laga soo madaxweynaha ku-xigeenka ka soo jawaabeen waxaan leenahay mudug gudoomiye soo dhawow mar labaad soo dhawow dhanka kale gudoomiyaha cusub siyaasadda sidoo kale maaliyadda ee gobolka Hiiraan ayaa kaga mahad celiyay shacabka gobolka Hiiraan soo dhaweyntii maanta ay ugu sameeyeen gudaha magaalada Beledweyne bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanada maamulka gobolka maamulka degmada saraakiisha dhaqanka dhalinyarada haweenka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhaweynta quruxda badan ee aad noo sameyseen iyadoo lagu jiro waqti kulul duhur ay tahay maadaama waqti kulul lagu jiro waxaan jeclaystay inaan khudbadeeda soo kaabiyo waa mahadsantihiin si sharaf leh karaamo leh aad noo soo dhaweyseen waxaan idin ballan qaadaynaa inaan isla shaqayn doono si dhadhow iyo si gaar ahaaneedba inaan wada kulmi doono hadduu alla yiraah waa mahadsantihiin wabillahi tawfiiq Liban Subani Daud TV raadiyo caalamiga Danan TV Beledweyne